magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose waxaa soo gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland soo dhaweyn kadib waxaa warbaahinta qaybta mas'uulka garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo kula hadlay xildhibaan Cali Maxamed Guure oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland koosman wasiir Beekos ayaan soo dhaweynay haddaan macnaha airport ka joognaa waana bixir rabnaa hadii la yiraahdo waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka inuu kelmateen uu dhaha waxaan leenahay wasiir ku soo dhawow magaaladaadii ku soo dhawow Jubbaland waxaan ku leenahay macnaha welcome baan ku leenahay wasiirka waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo annagoo ah dhowr xildhibaan ayaan ku soo dhaweynay in macnaha iyo odayaal wasiirka warfaafinta wasiirka wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta ayaan ku soo dhaweynay marka ku soo dhawaan leenahay macnaha mudana wasiir haddana waxaan u rajaynaynaa wasiirka insha Allah sidoo kale waxaa isna dhakiisa hadlay wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Maxamed Cabdi Beekos waxaana hadaladiisa ka mid ahaa laba jeer aniga wasaaraha isla soconay waa nimid waxa sharaf weyn iyo amaanta garoonka isbedelka weyn ee aan maanta ku arkay khaasatan meesha hadda aan fadhino VIP ga hore u jirin soo dhaweynta meesha laga baxay meesha laga soo dagayo horumar badan ka jiro marka waxaan aad ugu hambalyeeynaa maamulka garoonka Kismaayo gaar ahaan maamulka Jubbaland horumarka ay ka sameeyeen dhinaca airport-ka ee magaalada Kismaayo taa waa dhinacii mahadcelinta iyo waxa ay qabteen dhinaca kale aniga wasiirka dowlaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waxaan maanta booqasho rasmi ah ku imid magaalada Kismaayo aniga howl shaqo u imid arrimo siyaasadeedna u imid shaqadaas oo ah in warbaahinta doorkeeda magaalada Jubbaland dhinaca telefishinada iyo raadiyalka iyo journalistiyaasha iyo warbaahinta guud ahaan inaan aragno howlqabadkooda iyo waxyaabaha ka dhiban iyo waxyaabaha dawladda dhexe ay ku tari karto dhinaca warbaahinta khaasatan doorashooyinka soo socda ee lagu qaban doono Jubbaland doorka ay ka ciyaari doonaan maamulahan warbaahintana doorka ay ka ciyaari doonto inaan ka wada hadalno wada hadalkeena waa dhimay anaga warbaahinta waa ka wada shiri doonaa howlka ay qaban doontaan waxyaabo badan oo dawladda dhexe ee Jubbaland ugu talagashay ayaa jira oo dhinaca warbaahinta ah idaacadaha raadiyaha iyo telefishanka marka maamulka guud ahaanna waxaan u mahadcelinayaa sida amniga iyo wanaaga ay maamulka Jubbaland u qabteen marka arintaas waa arrimaha ugu mahadcelinaya maamulahan madaxdana halka joogta wasiiro iyo mas'uuliyiin insha Allah waa isarkeena idinkana aad idinku mahadcelinaya Zakariya Abdi Qaadir Karazai TV ga bulsho magaalada Kismaayo